Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada muuqaal cusub. Melissa oo ah gabar dhanka moodalka dharka xayeysiisa, asal ahaana ka soo jeeda dalka Brazil balse ku nool Mareykanka ayaa saaxiibkeed kala kulantay jirdil xooggan. Balse intaan u gudagelin faahfaahinta dhacdadan, haddii aad ka mid tahay asxaabta nagu cusub, fadlan subscribe saar kadibna furo gambaleelka si aad u heshid muuqaaladeen ugu dambeeyay. Mahadsanid. Gabadhan oo 22 sano jir ah ayaa waxaa si xun u garaacay una gacan qaaday saaxiibkeed hantiilaha ah ee lagu magacaabo Eric Beth. Mushkiladda ayaa ka bilaabatay kadib markii Melissa kontadeeda Instagram-ka ay soo gelisay sawirkeeda iyada iyo saaxiibkeed oo isagoo xabad qaawan gadaasheeda taagan. Eric ayaa si aad ah uga xanaaqay sawirkaas, wuxuuna si degdeg ah uga saaray kontadeeda asigoon kala tashan. Sida muuqata, Eric wuxuu hayay passwordka Instagram-ka Melissa. Intaas kadib, Eric iyo Melissa waxaa dhex martay dood adag, taasoo sababtay in Eric uu gacan u qaado Melissa. Gabadhan oo ah ardayad dhigata jaamacadda Florida ayaa sawirkeeda oo uu wejigeeda ka muuqdo dhaawacyo uu gaarsiiyey saaxiibkeed soo gelisay baraheeda bulshada, waxayna garab istaag xooggan ka heshay asxaabta ku xiran koontooyinkeeda. Waxay warbaahinta maxalliga ah oo ay wareysiyo kala duwan siisay u sheegtay in saaxiibkeed uu si xun feer iyo laad ula dhacay. Sidoo kale waxay sheegtay in uu tinta ka jiiday, qaar ka mid ah tinteedana dhulka ku daadatay, kadibna uu ku tuuray guriga bannaankiisa. Waxay sheegtay inuu isku beddelay shakhsi cabsan oo aad u dabeecad xun. Sidoo kale waxay carbaabtay in uu ahaa masiirow daran oo xaasid ah. Intaas kadib waxaa la xiray oo xabsiga loo dhaadhiciyey Eric, waxaana lagu xukumay xabsi gaaraya 22 sano. Kooxo u dooda xuquuqda haweenka ayaa dalbaday in ciqaab adag la marsiiyo Eric. Melissa waxay mar kale dib u soo celisay Instagram-keedana u soo gelisay isla sawirkii sababay in la garaaco, waxayna ku soo dul qortay oraahdan: waxaan dib u soo celiyey sawirkii dartiis lay garaacay uuna ka saaray isagoon igala tashan. Sawirkan ayaa waxaa ka falceliyey dad gaaraya 140,000 oo ruux oo ka mid ahaa asxaabta ku xiran koontada Melissa. Haddaba daawadayaal, nala wadaaga aragtidiina. Eric ma wuxuu ka masayray sawirka saaxiibtiis mise kiisa? Aragtidiina noogu soo hagaajiya qaybta kommentiga. Mahadsanidin. Sidoo kale ha ka ilaawina inaad muuqaalkan la sii wadaagtaan asxaabta kale.